أحلى قديقي وعين بوا فرس وقادينا وداد بقى وبدا الله سوداني هاي كين farduhu xilli wuxuu ahaa kan ay ugu jecel yihiin Soomaalidu waxayna ku aadi jireen duulaamada iyo safarada dhaadheer وقت لقوا ما هي هداد حول الدون يسا حمراء أكتشو هداد حول الدون يسا حمراء أكتشو هداد حرقات دون يسا حمراء أكتشو marka waxa la leeyahay xoolahana isaga lagu helaya xaragada isaga lagu helaya wax walba isaga lagu helaya farduhu marbu ahaa kan ugu qaalisan dunyada ay Soomaalidu dhaqato kaalin aad u muhiim ah bay kaga jireen xilliyadii hore farduhu nolosha Soomaalida mar baa la siisan jiray faraska 20 halaad oo geelo isna aad loo jeclaa mar baa la siisan jiray 15 mar baa la siisan jiray 10 intaba si lamida fardaha waa la kala dhici jiray oo kooda dagan waa la boobi jiray waxa la nin iyaba israacay odaya oo waayeela oo marka aan aad wax uga arkaynin iyo inaanu adeeru yahay odag waa farda aqoon raa'iba dabadeetana farda waganka waxa la yiraahdaa markay fardu badan yihiin baaf Soomaaliyan wagan la yiraahdaa oo meel fadhiya ama ku xareysan ayay damceen inay dhacaan laba faras bay doonayaan ka dhacaan dabeedna odag inaan kiibu tilmaamo wuxuu galo faraska noocaasa ee qoobka halka ku xoqaya ee xagga u jeeda odagu faraska arki maayo aqoontu farda u leeyahay ku qiyaasaya xadhiga inuu ma hayso baad buu wuxuu haya xadhiga ku qabo laba faras bay la baxeen habeenkii oo dhan bay fardihii mireen waagu markuu soo dhawaaday bay fuuleen dabeetana markii waaga bariye fardihii la eegay baa la waayay labadii faras raadkii baa la arkay col baa ka daba baxay inankii baa wuxuu yidhi waa layna daba socdaa odagii ku yidhi fardaha ina daba socda maxaa soo horeeyay buu wuxuu laba faras oo qaaja ah yaa soo horeeyay qaaje waa mid farduuleeyay wuxuu cadceeda indhaha u saar waxba kama arka cadceeda labadaas waa hadheen cadceedi baa reebtay laba kala soo baxay buu waa maxay buu waa xamar buu markaasuu meel ciida oo dixa ma inagu dhowdahay uu haa inagu dubuur ciida reebaysi labadaasna waa hadheen laba kala soo baxay buu waa maxay buu waa ashkir buu buur meel buuri ma inagu dhowdahay buu haa dhagaxa ma maray meel dhagaxa inagu dubuur labadaasna waa hadheen maxaa soo baxay buu caynab fariska tukaha ee madow laba caynab baa soo baxay ayda inagu dubuur hadaba qodaxda reebtay isna labadaasna waa hadheen maxaa soo baxay buu labadaynu ku joogno labadoodii waa baroor jilba madow ay ku joogaan waa faraska fardaha loo gaato afar midable ooftiyo fanka iyo adhaxda weynaatay oogada madoobow baroor ila ciyalaan dooni waa halkii ninku ka yiri baroor baa soo baxay buu labada aynu ku joogno wuxuu hadaba kuwa meelina reebi maysi faraska jaraha u siida wixii orod ku jirana ku dhufa jeedalka ninkii xalay dixidaajay saakana dareemo ugu luqluqay ayuun baa ku leh kaasina waa inaga xalay oo dhan waynu mirayni kuwada gaaja reebaysa markii isla maalisa waalo cadceedu kululaato ayay harayaan oo gaajadu reebaysa siida labadeen fardii halkii ayay kula galbadeen waxa lagu kala dooran jiray midabka iyo muuqaalka jirkiisa qofka doonaya inuu faras gato waxa uu fiirin jiray sida uu la falgali karo deegaanka iyo cimilada sheekadaasi waxay ka turjumaysaa ninka odayga ah faras waliba halkuu ku liito iyo waxa reebaya ayuu sheegay qaar wuxuu ku reebay ood iyo ay qaar wuxuu ku reebay buur iyo dhagax qaar wuxuu ku reebay dix qaar wuxuu ku reebay cadceeda faras ba meel buu ku reebay aqoonta ay fardaha u lahaayeen Soomaalidu waxay ahayd mid sareysa kumana qaadan duruus kamana aqrisan buugaag sababtuse waxay ahayd waxay ku barteen dhaqashadooda sheekada waxaan u soo qaatay aqoonta ay Soomaalidu u lahayd fardaha iyo markay ku dagaalgalayso iyo marka ay daajinayso waxaa jira gabayo iyo gaagaaro hore loo tiriyay si loo muujiyo qiimihiisa xilliyada qaar fardaha waxa loo qayb gali jiray tartamada waana la isugu faani jiray
nin kastaana waxa uu muujin jiray inuu ka faras fiican yahay kan kale. xilli ku beegan 1930 baa Ingiriisku qaban qaabiyay tartan fardaha ah dabeedna wuxuu faraska lambar 1 ka gala waxaan siinayaa abaalgud maxamuud isagoo faraskiisii koolkoolinayo intii aan tartanka la gelin dhoolatus iyo hanjabaad inaan maanta faraskiisa kaalinta koobaad cid ka qaadaynin isagoo tilmaamaya ayuu geeraarka tiriyay wuxuu neefkan qaararka weyn ee quwadiisa la yaabay hooyadii qadan weeye qowlaanay uurka ku qaada qalalaasiya boob iyo meel qasaare ka duulay oo qolana aanay turaynin oo rasaas la isku qubaayo oo meydku qaararka daylay oo qaawo geel ololeysaan qoolaaba uu la wareegay qormadii balanbaal qoyskii reer Abokor quraacdu ku dhashay qoolkii baa laga dhawray dawan qaaxa ballaaran baa qoorta loo geliyay rag rasaas ku qabiban baa qaatilkii ka ilaashay qabaalkii xanigeed iyo haadla qorriyadeeda iyo qolmadoodii kulaale durdurkii qulqulayay buu hadba qaar u tallaabay dixidii ku qubnayd iyo dareentii buu laba qaaday qomaati buu u mirtay qayb baa looga shaqeeyay markaasuu quwad dhaafay qurux waa u isxal qiimo waa u taleexi quwad waa u maroodi qafal waa u xamarqaayi qorshana waaba u kaa neefkii maanta la qooqana qoomam ma u dambayn waxaa jira cilladaha haddii farasku uu leeyahay aan la iibsan jirin qubud maaha gaboobay qaydha maaha darmaana qayax maaha iftiina qaajo maaha caddaana qumbe maaha kudaaya qobtal maaha sariiga qufle maaha magaana qayr maaha madowwa qallaf maaha margaaga qoono maaha kudaada qowlax maaha cirweyn qolshax maaha wareega qufle maaha xarraana qoob weyn gaabiya maaha hadda qiimaha farduhu hoos ayuu u dhacay dagaal iyo duulaan warkii daayay dumarka ayaa lagu galbiyaa